إنا لله وإنا إليه راجعون. وعن هالكن مركا كوادان وتعسيين يا ودهان ولاله الصومالية كل انتي dagaalkii u dhaxeeyay labada beelood ee walaalaha ah ee isku deegaanka ah ee isku maamulka ah ee deegaanka Baranballe ee gobolka Galgaduud kaasoo maanta labadaasi beelood uu dagaal ku dhex maray dagaalkaas oo sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac iyo waliba barakac waxaan halkan aan baaq uga dirayaa guud ahaan beelaha deegaanadaasi Galgaduud iyo gobolada Mudug waan ugu baaqayo in deegaanadaasi ay noqdeen deegaano ay soo noqnoqotay colaadoodu taasoo inta badan ay siyaasiyiinta Soomaaliyana ay qayb ka yihiin horintooda waxaan ugu baaqayaa dadkaas reer miyiga ah ee wax magaratada ah ee maalin kasta halkaasi ku shufbeelaya in ay colaadda joojiyaan isla markaasna ay qaataan nabad daris wanaag iyo walaalnimo bulshada Soomaaliyeed oo muddadii taliya burburkii intii dawladdii dhexe dhacday ku jiray colaado iyo barakac iyo dhibaatooyin soo noqnoqday haddii ay tahay gobolada waqooyi iyo haddii ay tahay gobolada koonfureedba waxaa dhalinyartii Soomaaliyeed ay ku baabeen colaado ay hurinayaan dad siyaasiyiin ah kuwaasoo iyagu leh dana gaar ah isla markaasna doonaya hadba aragtidooda meeshay ka arkaan inay dhalinyarada xaaba ahaan ay ugu isticmaalaan in ay dhalinyarada ay halaagaan oo burburiyaan waxaan dowladda federaalka Soomaaliya ugu baaqayaa oo madaxweynaha ka yahay mudane Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoolqoor iyo guud ahaan siyaasiyiinta beelaha kala duwan ka soo jeeda ee gobolada Mudug iyo Galgaduud ka soo jeeda waxaan farayaa isla markaasna aan ugu baaqayaa in si daacadnimo ah oo wada jira oo walaalnimo leh looga shaqeeyo sidii loo soo afjari lahaa colaadan oo runtii noqotay mid gelinba gelinku ka dambeeyo deegaankaas aan la isugu halayn karin nabadgelyadiisa saacadu doono iyo ilbiriqsigu doonana uu ka qarxi karo dagaal u dhaxeeya beelaha si walaalaha waxaan bulshada deegaankaas ugu baaqayaa guda joog iyo dibad joogba in ay arrintaasi nabadgelyada ah ay ka shaqeeyaan walaalnimadu waxay tahay daris wanaagu wuxuu yahay iyagu ismay dooran ee Ilaahay baa isu dooray waxaan qurba joogta ugu baaqayaa oo ugu dirayaa fariintayda qayb weyn bay ka yihiin horinta colaadaha deegaanada Soomaalida inta badan waxaan qurba joogta ugu baaqayaa inaysan shilinkooda ku bixinin wiil geel jira ah oo reer miyiga iyo qof warma qabta ah in $100 iyo $1,000 ah soo dirto aan lagu dilin taasoo qiyaamaha sababka ugu noqonaysa in Ilaahay hortii lagu soo istaajiyo laguna tuso burhaantaada iyo cadayntaada qofkaasina ka waxgeystay aad ka dambi badan tahay adigaaga suuro galiyay inuu qof muslima u dilo ugu dambeyntii haddaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee u taagan sidii shacabka Soomaaliyeed ay u soo laaban lahayd qabkoodii dawladnimadoodii iyo awoodii ay ku lahaayeen geeska Afrika iyo guud ahaan dunidaba waxaan ugu baaqaynaa in laga shaqeeyo sidii guud ahaan colaaduhu deegaanada ay ka jiraan haddii ay tahay waqooyiga Soomaaliya iyo haddii ay koonfurta tahayba in si wada jira looga shaqeeyo dhalinyaraduna ay u kacdo sidii loo badbaadin lahaa jiilasha ama dhalinyarta Soomaaliyeed ee cadowga dibaddu ama cadowgu ku soo duulay ee doonaya in badihiisa iyo deegaanadiisaba uu qaato waxaan bulshada deegaankaas ugu baaqayaa guda joog iyo dibad joogba in ay arrintaasi nabadgelyada ah ay ka shaqeeyaan walaalnimadu waxay tahay daris wanaagu wuxuu yahay
iyagu ismay dooran ee ilaahay baa isu dooray